waxaa la dhageystay isla markaasina la qiimeeyay warbixinta waxqabadka sanad miisaaniyeedka 2016 ee tirsiga Itoobiya ee mashruuca horumarinta habnololeedka bulshada xoolo dhaqatada iyo xoolo dhaqatada beeraleyda ee LLRB wejigiisa koobaad. qiimeyntan uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Ibraahim Cusmaan Faarax ayna ka soo qayb galeen guddiga sare ee hagidda mashruuca ayaa sidoo kale lagu dhageystay qorshaha wejiga labaad ee sanad miisaaniyeedka 2017 ee tirsiga Itoobiya, taasi oo uu soo jeediyay maareeyaha mashruuca LLRB Mudane Mukhtaar Cabdi. kadib markii la soo jeediyay isla markaasina la falanqeeyay waxqabadka mashruuca sanad miisaaniyeedka 2016 ee tirsiga Itoobiya iyo qorshayaasha cusub ee lagu shaqeynayo 2017 ayaa lagu ansixiyay waxqabadka iyo qorshayaasha mashruuca. madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Ibraahim Cusmaan Faarax ayaana ugu dambeyntii bixiyay jihooyinka cusub ee awoodda la saarayo. haddaba kadib markii uu kulankani soo dhammaaday ayaan wax ka weydiinay suu faahfaahin dheeraad ah nooga siiyo maareeyaha mashruuca LLRB Mudane Mukhtaar Cabdi. maanta waxaan goobtan ku sugnayn qabanay qiimeyntii mashruuca LLRB sanad miisaaniyeedkii 2016 taasoo runtii aan dhihi karo success bay ahayd oo actually shaqooyin muhiim ah oo bulshada waxtar u leh uu mashruucu fuliyay oo ay kamid yihiin jidadkii, bridge-yadii, biyo-gelimihii, ceelal uu qoday, shaqo abuurkii, waxyaabo badan oo isku dhafan fara badan oo uu gacanta ku hayay. intaas markii laga yimaado si guud waxa weeye warbixintan soo jeedinay kadib steering committee way qiimeeyeen su'aalo iyo jawaabaha jiray qaabaan ansixinay oo warbixintiisa saas lagu ansixiyay. kadib waxaa soo raacay oo jirtay in qorshihii 2017 iyadana la ansixiyay. qorshahaas oo isugu jiray laba oo mashruucii hore ee socday mashaariicdan gacanta ku haynay soo gudbay miisaaniyadii la soo gudbeen in la fuliyay waxa weeye iyadana la ansixiyay. waxaa kaloo iyadana jirta maxaan ku raadayay mashruuc cusub oo aan bilaabayno LLRB2 ah aan maalmahan ku jiray qorshahay bilowgiisii hore yani qorshaynaan bilownay oo aan kala tashanaynay sektarada kala gedsan oo ay soo gudbiyeen waxyaabaha priority-ga oo sanadan ay fulinayaan. marka mashaariicdaas laftarkoodana waxa weeye iyadana maanta waan loo ansixiyo waxa weeye qorshihii mashruuca labaad ee LLRB isagana waa la ansixiyay kaasoo isagana la fulin doono waxa weeye sanadan wixii ka dambeeyay. kadib waxaa xigi doona in mashruuca la launch gareeyo, community la consult gareeyo, qorshihii shanta sano ee mashruucana la sameeyo oo la gabagabeeyo qaabka lagu wada hadlay. marka guddigu way isku noqonayaan kadib qorshe 5 sano oo mashruuca cusub ee hadda la ansixiyay miisaaniyadiisa hordhaca ee sanadan shaqooyinka lagu qabanayo si aysan gaab u imanin ayaa waxa weeye aan ka wada hadalay. si guud waxay ahayd success in si joogto ah guddiga sare ee hagida mashruuca LLRB waxay sameeyaan supervision kala gedisan shaqo waxa weeye inta badan ay ku tagaan goobaha mashaariicahan ka fulino ay indhahooda ku soo arkaan maantana qiimeynta kursiga lagu qiimeynayo mashruuca performance-giisa si guud maadaama detail ay u hayaan ayaa jirto socotay.